4 sano ka hor maanta oo kale oo ku beegan taariikhda 3 December waxay ahayd maalin murugo u ah ummadda Soomaaliyeed waana maalintii la xasuuqay arday dalka wax u baratay iyagoo ay ku weheliyaan waalidiintooda macallimiintooda iyo waliba madaxdooda dadka laga casuubay munaasabadaasi ayaa waxay ku soo galayeen jawi aad u wanaagsan iyagoo oo watay warqadihii casuumaadda gabdho wiilal odayaal siyaasiyiin iyo macallimiinba sida quruxda badan loo fadhiyo iyo waliba farxadda damaashaadka ah ay ardada doonayeen inay guryahooda ula laabtaan shahaadooyinkooda ay ku soo tacbeeleen muddadii dheereed ee ay halganka waxbarasho uga soo jireen goobta waxaa ku sugnaa 4 wasiir oo ka mid ahaa dawladdii Sheekh Shariif ee ku meel gaarkii ugu dambeysay wajiyadan idin muuqda ee siyaasiyiinta ayaa ah kuwa waxtar u lahaa dalka markaad eegto jagooyinka ay hayeen sida wasiirka isboortiga iyo shaqaalaha wasiirka caafimaadka wasiirka waxbarashada iyo wasiirka hidaha iyo tacliinta sare intaba waa kuwa maanta ciida ka hooseeya dhaqaatiirta iyo aqoon-yahanadii halkaasi ka qudbadaysay ayaa waxa ay aad u dhiirigeliyeen ardadii qalin jibisay waxaana ka mid ahaa Allah u naxariistay dhakhtarkii weynaa shahiid oo isna goobtaasi ku dhintay Dr. Dufle ayaa khudbadiisa ahayd tii ugu dambeysay ee ku soo beegantay ismiidaaminta muasasada jaamacadda oo mudada soo dadka ku sheegay dhakhtarka iyo gudoomiyaha jawigii goobta ayaa sidan isku bedelay dad aad u fara badan arday waalidiin siyaasiyiin dhakhaatiir iyo suxufiyiinba ayaa ku nafwaayay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa 3 December ee 2009 ka dhacay weli kama uusan tirtirmin qalbiga ardada wax ka baratay jaamacadda Banaadir iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed waxaana uu ahaa mid qalqal galiyay ardada ku haminaysa inay dalkooda wax u bartaan iyagoo u arkay in la laynayo aqoon-yahanada Ibrahim Umar Baafe wararka Universal Melbourne Australia